shir jaraa'id uu maanta qabtay suldaanka dhalinyarada Soomaaliland Suldaan Cabdiraxmaan Axmed Sheekh Maxamed ayaa waxa uu kaga hadlay xuska 18 May isagoo soo jeediyay bulshooyinka ku nool gobolka Awdal inay si aad ah uga qayb qaataan xuska 18 May. gobolka Awdal waxa lagu diirgaloobaya si aad u sareysa inkastoo gobolka Awdal markaas lagu xusiray maalinta 18 May iyo gobolada kale Jamhuuriyadda Soomaaliland laakiin ka gobol ahaan waxa maanta loo soo dhaweeyaa ama lagu soo baxayaa si lagu qiimaha badneed abid jirtay marka dadka ku nool gobolka Awdal ahmiyad gaar ah ayay u leedahay maalintaasi waxay ahayd maalintii lagu aasaasay gobolka Awdal oo sanadkii ugu horeysay Burca lagu qabtay shirkii labaadna waxa lagu gunti xidhay Jamhuuriyadda Soomaaliland gobolka Awdal dadka gobolka Awdal waxa ku soo tayihiin calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama uu fikirku ka yimiday ama doorashadii ugu horeysay ka qabsatay gobolka Awdal taasi waxay ahmiyad gooni ah siinaysaa dadka reer Awdal inay yihiin aabihii Jamhuuriyadda Soomaaliland munaasabadan waxay kaga duwan tahay runtii siyaasadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo isbedel weyn ku yimiday iyadoo markii hore oo qaranku qaatay inaan la hadli karin koonfur Soomaaliya oo markii hore la isku keenay jiray Jamhuuriyadda Soomaaliya la isku keenay jiray oo goor isku taageen dib uga soo noqonay siyaasiyiinta ama constitutionka Soomaaliland wuxuu ahaa inaan la hadli karin dadka mitaliya Jamhuuriyadda Soomaaliya maadaama aan helaba dawladda marka tii iyadoo la bedelay baarlamaanka oo kala fadhi ka sameeyay waxa la go'aamiyay constitutionka lagu soo bixiyay in la hadlo siyaasiyiinta Soomaaliya sababtoo danba hore looga dhaxaysay marka sidii loo kala guri lahaa ayuu hadafku yahay taasina waxay noqotay tii madaxweynuhu ugu baxay qurbaha ama Mareykan ama Turkiga iyo Ingiriiskaba waxayna muujinaysay in qarankan ay yahay qaran jiritaankiisa oo gooni yahay laba dawladood walaalo ah nahay laba dawladood caawin kara nahay laba dawladood iskaashi kara nahay marka maadaama siyaasadda Jamhuuriyadda Soomaaliland xagga dibadda horumar ku yimiday taasi kaga duwan tahay in la muujiyo muqadas waabinaya aad baan i salaamay saxaafadda ruuxantii saxaafadda oo mid kaliya cabirta fikirka dadweynaha waana tayn gaarsiisay maanta inaan ku faano calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland jiritaankeena iyo nabadgelyada aan ku faano saxaafadda keentay sababtoo haddii ay saxaafadda jirin oo fikirka dadweynaha ama jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland cid gudbisayna jirin waxaan aaminsanahay inuu qaranku hirdankiisa siyaasadeed maanta halka gaareen saxaafaddan aad baan u hambalyeynaya waxaan leeyahay dadka Jamhuuriyadda Soomaaliland khaasatan dhalinyarada aniga aan suldaanka ahay ee Jamhuuriyadda Soomaaliland maalinta 18 May maalintaasi waa in cid kasta iyo qof kasta cid kasta oo muwaadina aan u hurnaa maalinta muujinta qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland inagoo nabadgelyada ilaalinayna mar walbana wada shaqaynayna jiritaankeena muujinayna siyaasadeena adeecayna madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta heer qaran soo dhaweynayna si kastaba ahaatee shirkan jaraa'id uu qabtay suldaanka dhalinyarada Soomaaliland Suldaan Cabdiraxmaan Axmed Sheekh Maxamed ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli muddo kooban ay ka harsan tahay xuska 18 May iyadoo guud ahaanba Jamhuuriyadda Soomaaliland si aad looga xusayo xuska 18 May iyadoo gobolada qaarkoodna ay dardar xoogan ka socdo iyadoo si aadana loogu diyaar galoobayo maalintaasi foodan ugu soo haysa محمد حسن اسماعيل شربيره شبكة ورقة صبلها جودها مقالة بورما.